عسلينا هذا بعد ما سي أيام برامج كنا قيبها هراء أنكو فلانقين دونا إمينك وحقتك إن سكيب كاسيتوس وجرا إن مصطفى سما سبريه وعلى بكافة اللوضة أرمها إن عالمك يسدو كله أرمها كله لحرير الصومالية تمركنا وحا ودياريه إن ننكاس يسدو كله حريرك إن عالمي جامع وحلو يقانو international relationship وحنا وحكوا الدين دونا مصطفى إن أرمها لحريرة إن غزة تاني إيه برتمه بشي ديسمبر إيادو إن لاشيغيو إن دمشقي ugu badneed ay sabtidii dhacday kadib markii howlgal ay fuliyeen ciidamada Israa'iil qofka lagu dilay maalintaasi kaliya waxa lagu qiyaasay inay gaarayeen dadka la dilay 283 qof hadaba waxaan xasuusanaa diyaarad toddobaatimihiin lagu aftuurtay wadanka Uganda saan oo kala ay qaab diblomaasiyaysan oo xarfaanimo ku dheehantaa Israa'iil oo soo furatay laakiin tan way ka duwaneed 270 qof in loo dilo 4 qof runtii waxay iyagoo heshiisyo jiraan oo heshiisyo hore Israa'iil maxaabiis iswidaarsatay laakiin taas waxay cadeynaysaa fudeedka Israa'iil aysan wada hadal inuusan bariga dhexe aysan ka rabin marka 270 qof ay ku dishay camp leeyahay Nusrat ku yaala bartamaha magaalada Gaza sida ay sheegeen wasaaradda caafimaadka ee dawladda Falastiiniyiinta laakiin Israa'iil waxay difaacaysaa waxay leedahay dhimashadu inta soo ka yar tahay 80 ilaa 90 qof ay ku sheegaysaa dadka meesha ku dhintay laakiin tirada saxda ah ee wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta 270 qof ay dhimashada ku xuseen dhaawacun uu ka sii badan yahay marka وحنون ضد كريم فلسطين سو وجهها معنتي مركي لبعض إسرائيل دوني سيني ضد محابيس حب صوفات وانقرتي مركز فيرسو إن دجالك أو سجال بلاد عجاسي قلنا يو إسرائيل حتى أفر إن روح أو سدح رجع يهال دمرة يسوفرتي إن مالكرا قول أي جارتي إنك ستور زارها إسرائيل بنجامين نتنياهو مر وهذا يوشجعي إن هذا وباللاودي هالقالكي محابيست كسفرنايين حماسنا وحي شاكتين إن القيامية مركات اكتو أرمها سي إن إسرائيل عايز عالمية وإيمانية الدونكا ومريكان كاد وجودن بيسمانتا وشاقي إن هالقالكا سيدات الشاب على وجود لي runtii cabdicasiis Israa'iil markay si la fiiriyo guul u tahay in maxaabiisteedii dhowr bilood ah 6 bilood wax ku dhow kan ka yareen inta dagaalku socdo inay soo furato harayna way u sheegeen inay xoog iyo xeeladba waxay ku soo furo karaan maxaabiistoodii maxaa yeelay Israa'iil tani markii maxaabiistaasi laga qafay dadka qaarkood cudurro iyo meelaha lagu haayo oo dadka ay ahayn xabsiyo caadi oo godad hoostooda dhibaatooyin fara badan iyo cadaadis dawladda Israa'iil saarnaa ayaa jiray oo shacabka Israa'iil waxay doonayeen in maxaabiistooda dadka ehelada ayaa dawladda cadaadis badan saaray taas ayaa ka lifaysay in Israa'iil muddo u qaadato inay xoog iyo xeeladba shacabkoodu ku soo furtaan marka guul way u tahay dawladda Israa'iil laakiin tan dhabarjab ay ku tahay heshiiska madaxweyne Biden uu rabo iyo tan qadariyinta ay wadaan oo ah in si nabada maxaabiista lagu kala wareejiyo taas caqabad ay ku tahay ismalihi maxaabiistan soo furitaankooduna dhiirigelin weyn siinaysaa yani xamaas inay ka fiijignaato si walba oo Israa'iil ay maxaabiis kale ay gacantooda uga bixi lahayn waa gartay dhinaca kale waxa jirtay Mustafa in Falastiin aqoonsi ay ka heleysay wadamo badan oo reer Yurub ama reer galbeed ah oo Spain ay ugu dambeysay markaad fiiriso aqoonsiga hadda in Falastiin la aqoonsanayo iyo jawaab celinta wadamada caalamku ay ka jawaab celinayaan arrimahan iyo sidoo kale Israa'iil had moodo in diblomaasi ahaan ay aad uga go'an tahay wadamada kale marka laga reebo Ingiriiska iyo Mareykanka oo kaliya oo barbar taagan marka arrimahaas markaad fiiriso Falastiin rajada hadda ay leedahay ilaa heerkee ayaa lagu tilmaami karaa dhanka diblomaasiyadda runtii dawladda Falastiin oo adduunyada u aqoonsay inuu yahay maamulka Falastiiniyiinta rajo weyn ay qabaan وانوغين ودمada Yurub oo hadda aqoonsiyo rasmi ah si Falastiin sababtuna waxay ahayd Falastiin waxay weeyeen wax u soo gurmada
oo aqoonsi caalami ah siiya iyo tan yani caalamiga ah ee adduunyada isku fursad isku siido sababtan waxay ahayd mar kastaba falastiiniyiintu si ay uga go'oonsanayeen adduunyada kale maxaa yeelay israa'iil muddo cadaadinaysa muddo 50 sano wax aan ka yareen ayaysan dowlad lahayn calan lahayn masraxiyada caalamigana aan lagu matalin marka fursad weyn ay u tahay dadka falastiiniyiinta labada qaybood ee PLO iyo Hamas labadoodaba inay ka wada faa'iideystaan muhiimad gooni ah ay siinaysaa runtii xaqiiqadii waana muhiim fagarayaasha caalamiga ee calankii Falastiin dib uga babado xarunta qaramada midoobay haddii suurtagal noqoto laakiin hadda waa si ku meel gaar ah ay dowladahaas u aqoonsadeen ilaa 4 dowlad oo Yurub ku yaala waana muhiim dowladaha kale ee bariga dhexe ku yaala iyo Afrika inay si gooni ah u aqoonsadaan falastiiniyiinta oo muddo la daala dhacaya dowladnimo la daala dhacaya dhibaato iyo dagaalo sokeeye iyo kala qoqobnaan bulshadooda muddo 50 sano wax ka badan waa gartay markaad fiiriso carabta iyo wadamadii muslimiinta ma moodid in hadda ay usoo janjaananka Falastiin oo ilaa aqoonsi dowlad carabeed oo siisama jirto sida wadamadan Yurub marka maxaa xilligan keenaya in wadamadii fogaa ee Yurub oo Kristaanka ahaa inay Falastiin u heliyaan oo ay aqoonsiyaan halkii wadamadii carabta oo la ogol ahaa oo la diin ahaa aysan ilaa hadda aysan ka jawaabin sababtu waxay tahay dowladaha carabta cadaadis badan lagu hayaa tunka ayaa lagu istaagsan yahay laakiin wadamadaasi yani super powerka adduunyada iyo waxa lagu qiimeynayaa awoodda halkay dunida ku yeeleen laakiin dal carbood oo saaxiib ku dhici kara inuu Falastiin si public u aqoonsado dal kasta wuxuu fiirsanayaa dinihiisa gaarka ah mana ku dhici karo asoo u heli kara hadana wuxuu ka cabsanayaa gadaal wax mustaqbalka dalkiisa uu noqon doono marka laakiin wadamada Israa'iil galbeedka iyo xorriyatul qowlka ay si kale u fahmeen marka saas ay ku kala duwan yihiin dalalka carabta kuma dhacaan inay aqoonsadaan taas bedelkeeda Israa'iil ay xiriir la wada yeelanayaan waa heshiiskii qarniga ee madaxweyne Trump uu ka soo shaqeeyay oo wadamo badan oo bariga dhexe ku yaala Morocco Imaaraadka Carabta Bahrain ay heshiisyo Israa'iil la galayeen iskaashi ah marka wadamada qaarkoodna Sacuudiyana waxaa la rajeynayaa in wadamada safka hore ka soo galaya in Israa'iil heshiisyo la galo Suudaan waa la ogeeyay oo cunqabateyntii laga qaaday sababta ugu bedelayn waxay in Israa'iil iyo xiriiro ay la sameeyso marka wadamada carabta kuma dhici karaan inay Israa'iil xiriirka ama dhibaato u geystaan laakiin wadamada reer Yurub iyo wadamada ka fog meelaha dagaalku uu ka jiro muhiim ay u tahay inay Falastiiniyiinta aqoonsadaan waan gartay dhinaca kale markaan eegno gudaha Israa'iil laftigeeda waxaa jira cadaadis uga imaanaya xukuumadda Netanyahu shacabku iyo sidoo kale siyaasiyiinta dhexdhexaadka waxay aad uga soo horjeedaan dagaalkan ka socda qaso oo hadda waxa ugu dambeysay wasiir kamid ah xukuumadda Netanyahu oo lagu magacaabo Benzi Gantz inuu iska casilay xilkii wasiirnimo markaad fiiriso cadaadiska gudaha Israa'iil ka jira maxaa lagu cabiri karaa maadaama dagaalka hadda wali wasiirada kooban ee mayalka adag ama fog iyo Netanyahu ay aad u daneynayaan dagaalka halka wasiirada iyo shacabka badankood ee Israa'iiliyiinta ay doonayaan in dagaalkan la joojiyo wax walba lagu dhameeyo wada hadal markaad fiiriso colaadda ama khilaafka Israa'iil gudaheeda ka jiro kale ilaa heerkee ay u gaarsiisan yahay markaad darasto runtii Cabdicasiis waa mahadsan tahay dadka Israa'iil muddo dheer ayay dowladnimadooda soo dhabar adeegayeen haddana Israa'iil hal 70 sano dowladnimada ahayd hal habeen iyo 10 sano isku xigta nabadgelyo ma jirin maxaa yeelay waa wadan fronti dagaal saaran shacabka Israa'iil mar rabaan dagaal waxay rabaan wada hadal xalalkii hore oo la gaari jirana two state solution hada waa adduunyada waa kasii tagtay oo hal state solution ayaa la qaatay oo Israa'iil mandaqadaas loo gooyo ah dalalkii carabtana qaarkood lagu daro Urdun saas ayuu qorsho ah laakiin qorsho horgalay uma eko laakiin shacabka Israa'iil mar rabaan in dagaalku sii dheeraado maxaa yeelay wax faa'iido ah uma sii jiro nabadgelyo ay u baahan yihiin laakiin dawladda iyo dadka mayalka adag ayaa raba inay xoog wax ku xaliyaan taasna wax suurtagelaya indhaha uma eko maxaa yeelay shacabka Israa'iil 70 sano dowladnimada Israa'iil ay jirtay intaasoo dagaal oo kala duwan waxaan isleeyahay 15 16 ilaa 20 dagaal kama yaro inta Israa'iil ama
doonto in maxaabiista laisweydaasado kadibna daarihii burbura dib loo isto ayadoo xalkii wixii shalay laga dhacay weli aanan wax natiijo ah laga gaarin ayuu kusoo gabagaboomi doonaa waana haddaanan xal waara laga helin oo Israa'iil iyo laba dawlad oo Israa'iil iyo Falastiin la helin dhibaatadan isaan ay u sii jirto maalin kasta warbaahinta waa laga hadli doonaa wax natiijo ah oo soo kordheeni doonana ma jirto وهذا بس انتهي كاسين وحوها مصطفى ورسما سبريه او سي توسا قدka escape ugu jiray marka laga falanqeynaya arimaha la xiriira dagaalka qasa ka socda iyo waliba Israa'iil oo dhawaan sabtidii sheegtay in ay soo furatay maxaabiis afar ah oo ay haysteen ururka Hamas iyo sidoo kale mustaqbalka dagaalka qasa ka socda halka uu ku dambeyn doono wali waxa daawanaysan barnaamijka dunida iyo Soomaaliya imika waxaan soo qabanayaa gudoomiyaha